السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنتني إبليس بي أركتيو إذين شيء هذا إبليس وكي شيطان كاسي أركتي وحنا دحمر يدا إبليس دوت كل دوت دا وينوغو ورمي دونتا دوت دا سينو حيسيننا وحن شعلان لاين إنا مقاشيسو وحي يدا إبليس مركي وقولي جهور فرديي أوي وسيدا يدو يقولي أي سلاف صدين كلتون أمور أي أمور با أمور وآفوين وذو أكتين إلى وذا مغلق استبوا إبليسكو أديك سدا ابن عادك استبوا إبليسكو أديك سدا ابن عادك كو أغار سدا خير إسلامه نكو مؤدي هاي كبردو نقف آد وناك صنو الله كعبسي بدن يدي إبليس أرمها دحمري انتو لغو يقين شيخي أدمي وديار قرو إنو كعو أدمو إنو كعو تكذو إنو كعو صلاة الليل تكذو آخر كنا أدمو وحيول إبليس إياها شيخ هذا وآمني والليل لحيه حكاية أديسة وحيول الله ساعدها نقبل أدومه وحي أي كعد صدان أنا يقولون الله استغفار إيو آخر شنان وقومنا وحيول إبليس إياها شيخ وميالد أقين آخر شنادو إلى دلشتها شيخ أدمي كأتكاريو يري أعوذ بالله شيطانك أوي أراديو حناق مالس يرى اللوب يسكو يرى هدنا warha ooyine u adkayso ordo ninku ula noqo su'aal wuxuu yiri Iblis ayaa sheekh ila waadigan aan seexanayn ee alalade ma uurka ku muran oo baad rabtaa oo waxba nad cunin sheekhi adime wuxuu yiri Iblis ayaa sheekh waadigan alwaday sida ay rageel oo oodane miyad ooman tahay sheekhi adime wuxuu yiri Iblis ayaa sheekh aramiya xanuun eelbaa jiro oof baa ku mudan oo waad bugtaa ma ogtahay sida sheekhi adime wuxuu yiri Iblis ayaa sheekh iminka fahmay arrinkii ninkii aflagaadadii ereygaad ka tiri ayaan kugu filaan oo urugo iyo kugu reebay umal arrinkaanaaba aad ula yaabanaa inaad arsataa way ku egtaa sheekhi adime wuxuu yiri Iblis ومياد كبقي ميانا أركن وفها قوين شيخي أدمي وحولي قعشدا إبليس كالها أنه وحنا هاي إسلام إيمان كقري وتقولوا الرسول كيبا النفري الله حفظه هإلاليه إنا سمي رؤي ستناسل لا لكن إبليس وانكو أركيا وحتى هاي أفقئه أردونا عمل إن دبالك يوبيري وحولي إبليس أهي هذا كان نكني وأنسي ملح أنا فاضي أطغو أما أسكت ولا بهو أما أبد كسوق أوجي استاج شيخي أدمي يرى آمناي وأرور هره كسلا دؤك ويرى إبليس آمناي أذكرني كوال آمناي أذكرني كوال آخرهم يا إسوع راعسان إلى هاي صلاتنا إلى أبو كهربا شيخاga hoos horta ma ogtahay inaanu adiga aad ku jeclay aqalkaaga waxan odagadaada waxan aqalkiyo dugsigan odagiya arfigan maba eegayo wuu abraaraya horta ma waxba uga urabay mise ooriba ugu leexsan meel xagaas ka soo gala aaminay amarkiisa diid ana doqontii wada daacaysa amarkiisa diid waxay tiri Ibliiskii igu garwaa tawaanagoo sheekaygu waa nin imaan laho adduunyadu dhamaan way u soo urtaa aakhiru raba udugii jannada aqal inuu ka helo ana raaliyaan u ahaanaya si aanad adigu noo kala irdhayn wuxuu yiri Iblis ka adkaarato aayaad kursi aamana rasuul aayaad akhriday lama arag Iblis miyaad aragtay wali shaydaan ooyayo lagu dilay adkaar waxaan ooyayo uuda hayaan eegoon siri a'uudu billah shawa Iblis waa ayaan ku ri waariga kulankii Iblis wuxuu ku soo guul reerkii markii ku soo guul daraystay Cabdi Maalig oo jaar baan wahay uudiyo oo intaan maqlay ka bacdi aniguna waan soo weysaysto salaadii waan u soo diyaar garoobay dabadna waxaan ooyayo maan sideeg dabadna odaygii Iblis haayo soo qaxay
waxaan ooyaya uudaa hayaan eeguuna sidhi acuudu billaah show waa ibliis waa ayaan ku idhi waxaan ooyaya wuxuu yidhi uhu mooyee akhruda ordona dhaaf anuba sare i raacan waxaan idhi ibliis waxaan idhi wuxuu yidhi ibliis mooyee akhrude ordona dhaaf waxaan idhi iscun yahu iimaanka beel iga joog halkaa wuxuu yidhi ibliis wuxuu yidhi abwan waan ku arkayaa waad adkaarato kuma iman karee aday kuu dantee iga guro akhbaar oo i weydii su'aal intii aan afkaygu u celin jawaab buu uurku yidhi acuudu billaah wuxuu yidhi ibliis i weydii su'aal waxaan idhi ibliis aadamaa maxaad ugu yeedhataa inase hadday kuu ilduufto oo ay ku aaminaan aakhira maxaad uga dhiga abaal wuxuu yidhi ibliis qof waliba intuu awood leegyahoo abaal gudi karaa way jirtaa inaan ii kaalaya aadamaan ku dhaho laakiin ma odhan aakhira waxbaan idiin qaban karaa ilaah ba idin yidhi adduunyadan anaa ii casuumantiin aakhirana jannaan idin geynayaa aakhirana jannaan idin geynayaa addoonnimo dhab iyo iimaan saadiq iyo idinkana ikhlaas aan idinka helo waxaan idhi ibliis aadamaa qofkeed ugu jeceshahood iska aamintaan wuxuu yidhi ibliis aadamaa ma jiro qofaan jeceelahoo uurkaygu rabo laakiin in baan ku adeegsadaa iyagaa dartood ilaahay jannada iiga soo eriyo anna waa nabcay aadama dhammaan inuu galo jannada maba arki karo qof bini aadanoo jannada geliyo waxaan ibliis aadama dhammaan inuu galo jannada waxaan ibliis oo yaa ku jira laakiin in baan ku adeegsadaa waxaan oo yaa ku jira inta uu ku adeegsado inta aad ku jirto jacayl ma jira inta aad ku adeegsato bal ii sheeg cabdimaalik ow aakhirka anugu bay igu soo dari doonaa sheekadee wuxuu yidhi ibliis waxaan ku yidhi ii sheeg ciddaad ugu jeceshaheed ku adeegsataa wuxuu yidhi ibliis intii ehelo shirkiya in alla intii ehelo shirkiya inta faalisiya inta faashatiyo inta aamintiyo intii sixir taqaan anigaa isdhaha aakhiro janna aakhiro xaggee aan la geynaya isagaaba la yaaba kuwa isagaaba la yaaba anigaa isdhaha aakhiro xaggee aan la geynaya amar diidadaan kula kacay ilaah iyagaa ka daran awoodaan lelahayn bay adeegsadaan ways aaminaa aniga way imagan galeen buu yidhi ways aaminaa ubadkayga yaryara imikada dhashaa meelaha iyaga ka ilbaadiyo ehel baanu nahay iyaga qarshi igama baxo kuwa waa iska diyaar iyagoo ciyaalka meelaha ka eega buu shicirki waxaas qoladaas weeyaan waxaan yidhi ibliis ii sheeg mid kale wuxuu yidhi ibliis iska duraadiraha ehelka iyo bulshada eebada dhex dhiga ee beenta badan iyo laba afla waxaan yidhi ibliis ii sheeg mid kale wuxuu yidhi ibliis ka istaawiya sadaqada ku adag ee soomin alid ee salaad aqoon kaanaa la faqa buri ee raistuskaa buri kaanaa la faqa buri oo waxaan dhahaa dadku adiga mooye waa imbiig dadku adiga mooye waa imbiig keligaa isboqor afka sare u taag agoomaha maadigaa dilay aabahood adduunyadu aakhiro danteed ee adduunka farax baan ku dhahdaa buri kaa isagaanaa la sheekaysta buri waxaan ii sheeg mid kale waxaan ibliis ii sheeg mid kale wuxuu yidhi ibliis ililaha wadnaa uurkiiyo qalbiga wuxuu yidhi ililaha wadnaa uurkiiyo qalbiga aaladaa dhexula eeladaha dhexula aabbaa lahwiga ehlu muusigan aad u taabacaa buu yidhi iida ayaga albaabada in badan iyaga i ballaqo waa ii iraab qofkii igu adkaada baan ku mudo buu yidhi qolada iyagu waa ku shaqaystaa waa ku dhaqaajiya iyagu waa ii iraab buu yidhi qofkii igu adkaada baan ku mudo waxaan ibliis ii sheeg mid kale xoog badan buu siiyey waxaan ku yidhi ibliis ii sheeg mid kale wuxuu yidhi ibliis cabdimaalik halkaa markaan maraya waxaan ku qosay waxaan soo wado wuxuu yidhi ibliis adigiyo abwaaniin kalea ku jira buu yidhi waxaan idhi ibliis ama kaagayo timi ood noqdo ilkihii iyo dibnaha isla doontayoo indhahana ilma isku soo tubto ugu idhi ibliis arrin aad u kuron eegu dhalay maalin waxaana islaam iimaanka qira sideebaad aniga ii adeegsataa iima badan lahayd afqarmun lahayd dabadna wuxuu yidhi ibliis dee hooyino ha igu soo ordinay weydii su'aal buu yidhi haa iweydiin waxbaad iweydiin su'aalihii wad bay gu yidhi dee waxbaad iweydiinaysa haa wuxuu yidhi dee hooyino ha igu soo ordinay iweydii su'aal buu yidhi miyaanaad ogeyn adduunyada waxaad ugu jeceshahoo arwaaxda iyo nafta iyo inaan anigu ehel nahays jecel buu yidhi maxaabad isla xariifin buu yidhi adiga naftaad kugu jirtaa saaxiib baadna buu yidhi cidinama dhex marto waa ta labaad wuxuu yidhi adigiyo su'aal buu yidhi
marka anigi waa dib ii su'aal marka hore ana wareysanay adigii su'aal wuxuu yiri somatid abwaan alifa ma tahay dadku dhaho aftahan waana han kuri wuxuu yiri iblis inamiya hablaha heesaa intay isruux ugu daraan ummadda u bandhiga eed baa iyaga u xambaarsan hadiyaan abwaan erayo samayn laxan lagu adkayn inaan ii boqran muusiga aldabin bahalkan aad buu amaanay muusiga bahalkaasi ninkaasi markii sheekooyinka ugu adadka bahalahaas ka mid ah inaan ii boqrani muusiga aldabin buu yiri in badan sidii abeeso suxulan Cabdimaalig oo had iyo goor marka meelaha muusiga dadku iyagoo is wada ruuxayo oo markay wax maqlaan iyagoon ku tala galin bayeen ku tala galeen way xulaan dibadna wuxuu in badan sidii abeeso suxulan buu haddii aan abwaan eegada sheekadii inay abu fanaaniinta ku dhahayn marka idinkiiba waxaan ka dambeeyay idinkaaba waxaba de way soo wuxuu haddii aan abwaan erayo samayn laxan lagu adkayn inaan ii boqrani muusiga aldamin in badan sidii abeeso suxulan anigu aanan oran buu isaguna halkaas ka raaca aanan oran wariyaha udub oo dow echo waxa tahay allub xuno bila actiona daani mugtay goor hadaan is xirxin oo si is oran badawni way warkaan mugtay dad waxa tahay allub xuno bila actiona hadii aan taas ruuxina saasana la jaan qaad hadii waxa tahay allub xuno bila actiona is walaaqniyo ordo qurquri in yaro khamriya iimaanka dhigo marka noqoto off iimaanka dhigo ummadaba jibaax oo dumarka jir sida odaya subal buu yiri walka adigu xadka kaga baxba guud ninkii inanta ku oran buu yiri khasay caleek xilmaad ilbixi ma moodaa islaam buu yiri eeg maradan xunay ku amboolanta hadii goor hablo markay fanaaniin noqdaan marka hore marada iska tuuraan intaas uma horta qaawin inta kale yelgoodi dibadna ninkaas wuxuu ii sheegay hablaha isaguna maryaa ka qubo wuxuu ugu yiri aanan oran hablaha inantana aanan oran buu yiri khasay caleek xilmaad ilbixi ma moodaa islaam eeg marada xunay ku amboolantahay action baad action buu yiri dad inantii iyadana halka ay magaayuu ana inanta ordo action orod samee ordo isku soo alool buu yiri niman alla ku banayn amaanadii allana ku ilo halka inantii halka wala abwaan aafada lahayn adna aad ku jirin buu yiri waxaan iblis erayada xud iyo muusiga hadaan ka ilaaliyana maxaad igu iman baan ku yiri oo aan iska badaayo wuxuu yiri iblis saygiga wax weydiisay oo ku fatoonaya waay hadii waxa erayada xud iyo muusiga hadaan iska ilaaliyana maxaad igu iman eraya khaliya wanaagsan iska ilaalo maxaan ku wuxuu yiri ilaan aadamu urka baalayaal ma aha isago aragtida bulshada inaad iibsataa aday ku egtay buu oo dadka inaad istusto dadku waxay kugu bartaan aad samayso hadii aan dadka aan waxyaabaha aad ku soo caan baxdaysa waxa kamid ah weyn fanaan hees ku qaadaa buu yiri heestaada aad fanaan qaadin wariga oo muusig yeeran warigeed buu yiri waxa soo baxan noqon maysid buu yiri wuxuu yiri waxaad samaynaysaa hadii ila aadamu urku baalayaal ma aha iyaga aragtida bulshada inaad iibsataa aday ku dantay buu hadii kale ibriiqa afka ku hay ku amaan la aw yaa lagu ogaan buu dad adeegsan lahayd halka barta adigu iga jooji halkaas markaan maraynay ayaan ku warbarta albaabkan inta laga xidho waxaad iga sheekaysaa markuu deen xanaaqayo halka aniga markuu igu soo daray waxaad iga sheekaysaa ma ku jira ibn aadanka ii sheeg qofaad marka aad u nacabto markaad aragto aad istaado ilka ayaa ku cuna halka aynu ku joojino intuu nacab yahay intuu jecel yahay baad noo sheegtay tuun waxay ka mid tahay bahda suugaanta waxay leedahay maansooyin iyo gabayo dadka gabiyaa khayaal bay leeyihiin waxbay sawiraan markaa suugaanteedii ayay ku sawirtay inay ibliis la kulantay doodinaha ay dhex martay sheekadan ibliis ma arag isheedu ma qaban hadaan arko waan qaban lahaa waan xidhi lahaa dib looma dhibeene laakiin sida Cabdimaalig bay idin sheegay waan ku yaaniga waan cabiray waxyaabahan ku cabirayna anigu diinta islaamka ayaan kala baxay sheekada qayb labaad ayaynu u yeelaynaa dhamaystir ayaynu barta ay ku joojisay ayaynu ka ambaqaadi doonaa waa kaltuun Cabdiraxmaan Ismaaciil Fatata oo la kulantay ibliis dooday dhex marteen wada arkayseen dooda kale qaybta labaadna intaynu ku kulmi doono waa aniga oo Cabdimaalig Sheekh Musaacid doona dala socodsiinaya barnaamijka muqaalada uu qaadayay Tiiriye Jaamac Cabdi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.